Called Galma, the commercial and sales engineer, Wajir County. Currently, I'm sitting in for the county business manager who is away on official duties. This morning, we appreciate the courtesy call by the county government, led by the able deputy governor, to come and assess and know the status of power in Wajir. We all know it's a fact that power is an essential service towards the growth of the town. And unfortunately, we have had a breakdown on one of our generators for the last almost some couple of days. Fortunately, our technical experts from the grid are here, the engineers. They have been working on it. It's a hell of work, a big machine. They have been working on it since last weekend, and all is well. They are progressing well, and they are winding up the work, and hopefully by maybe the end of tomorrow we expect things to be back to normal. Ingiriis buu ku hadlayay wuxuuna noo sheegay in baahida loo qabo korontada Wajir ay taagan tahay intii xal waara laga helayo oo ku howl jirno hadaynu nahay maamulka waxa weeye inaan isticmaalno mashiinada hadda jira oo runaantii qadiim ah mar walbana fududahay inay cilad ay ku timaado soo noo sheegay injineer ka yimid Nairobi ayaa ku howlan hawsha ayada wuxuuna noo sheegay in saacadaha soo socda ilaa bari isaa dambe in korontadii ay sidii ay ahayd ku soo laaban doonto insha Allah bulshadeynta reer Wajir marka waxa ka codsanayna inay noo sabraan inta ayada waxaan leenahay KPLC ayaga idan ugu jirta in ay hawshan ay dardar galiyaan ayaga dhaqaale ku hela anagu dhaqaale ku meel anaana laga qaada horumarka Wajirna waxa asaas u ah oo budig u ah in la helo koronto joogto ah oo waarta oo mar walba lagu heli karo guryaha lagu heli karo warshadaha si aan u helno marka hindisaha iyo qorshaha noo degan sanawaadkan soo socda waa in la helo koronto joogto ah oo waarta oo intaan u baahanahay ma inta ka badan loo helo si warshado loo helo guryahana koronto ay u yeeshaan laakiin maadaama hadda ciladani ay maanta Abriil insha Allah laga xal gaari doono bulshada waxaan ka codsanaynaa iyagana inay noo sabraan insha Allah.